Soomaaliya ha guuleysatay marka la leeyahay waa duco. Soomaaliya ha israacday marka la leeyahayna waa duco. Soomaaliya ha midowda marka la bilaabayo waa duco. Ha israacday marka la leeyahay waa duco. Ha guuleysatay marka la leeyahayna waa duco. waana slogan waa slogan macnaha wax hal ku dhig laga dhigto waana wax dadka qalbigiisa lagu soo dunto waaye marka taas loo fahmo oo qofka attention-kiisu uu ku soo aado oo aad u hanato kulay waxaad ka hadli doontaan meelaha dadka aad madaxda u tihiin ayaad u hadli doontaan galabta shirkanagan waxa weeye shir dhowr asbuuc soo socday uu kamid yahay kuwana waa noo dambeeyaan maadaama sanad aan ka soo baxnay 2019 haddana aan galnay 2020ka waxaan samaynay aanan dhisnay oo diiwaaneen aan ku samaynay laamihii iyo fallaradii darisyadii diiwaaneen lagu sameeyay dadkii hawshiisa ka soo baxayna ay sidii u haystaan dadkii safray iyo dadkii meel kale u guuray booskoodiina aan u buuxino marka inta soo samaynay ayaa waxaan u diyaar garoobaynaa sanadka cusub hawsha aan qaban lahayn hawsha aan qabanayna maxay tahay waa waajibkii awalba aan fulinaynay oo ahaa horumarinta deegaankanaga iyo awaamiirta fulinta mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa qaranka oo ay tahay nidaamkii isxilqaan oo madaxweynuhu ku dhawaaqay oo ay ka mid tahay nidaamkii bulshabile ee gobernatooruhu ku dhawaaqay oo ay ka mid tahay nidaamkii deegaanka oo nalaynta iyo bilicso iyo la dagaalanka nadaafadda samaynteeda bulacadaha ka hortagooda iyo wixii fayadhowrka wax u dhimayay soo dhaweynta ama sagootinta mas'uuliyiinta qaran ee noo imaanaysa dalka imaanaysa ka qaybgalka munaasabadaha kala duwan ee mid qaran mid gobol mid urureed iyo mid deegaan oo hadda soo socota halkan lagu qaban doono munaasabadii sanad guurada ururka dhalinyarada degmada wada jir nidaamkii aan soo wadi jirnay iyo hawshii aan soo wadi jirnay yaan u diyaar garoobaynaa sidii aan awal diyaar ugu ahayn inaan u qabanno wixii soo siyaadana waan u diyaar garoobaynaa waxaan samayn doonaa wax alla wixii horumar aan u garanno inaan deegaankanaga ku samayno hawsha aan qabanaynaa waa hawshaas waxaa ka mid ah oo xoogaga wadaniinta intaa markay qabtaan dheeri u sii aad oo loo sameeyey waddankanaga cadow ayaa jooga cadow meel kale laga hagayaa jooga oo dalkanaga carruurtanadii inay ku baabi'iyaan ku talagalay waa midda asalka oo laydiin sameeyey waay xoogagu maxay ka dhisan yihiin waxay ka dhisan yihiin waax iyo laan iyo daris iyo fallar waa 10 guri dariskuna waxa waaye 50 guri laantu hadda waxay noqonaysaa intaasoo fallar intaasoo darisay noqonaysaa waaxduna intaasoo laamood ay noqonaysaa waxaad ogtihiin oo aan u samaynay 10 guri qof mas'uul 50 guri gudoomiyaha 50 guri iyo 5 fallar oo madaxdoodii 6daas ayaan 50 guri mas'uul uga dhignay
inay ka tashadaan inay isugu yimaadaan maxaa caawa xaggeen subaxii la aadayaa maanta xaggeen ka soo gudubnay konton guri oo 6 qof oo guddiyo ay ka tashatay waa salkii ugu dambeeyay la soo dhisay waay salka ka dambeeyay waxa ka waaye waa qoyska guriga ku nool oo aabaha iyo hooyadu madaxda u yihiin laakiin mas'uuliyad 10 guri ka dambeeyay oo loo magacaabo waa way mas'uuliyad 10 guri ah oo la magacaabay yaan samayn dadkaas cadawga oo dilaaga inayna ku dhex dhuuman deegaanka waay midaas ayaan inaan waajibkaas fulina rabnaa oo asalka kaas waay dhalinyaradu waa soo koraysaa qaybaha kale ku gudbi doontaa haddii alla yiraahdo mas'uuliyadna si noqon doontaa waxaad arki doontaan qof 10 guri ka soo baxo fallar soo qabtay oo dariska oo konton guri tagay oo ka gudbo laan tagay beeralayda oo ka gudbay dadka kamid yihiin oo waax tagay oo ka gudbay gudoomiye degmad tagay ama ku xigeen aad arki doontaa ama gobol u gudbay haddaad nooshiin noloshuna waxay ku fiican tahay in salka laga soo bilaabo iyo waaye aragnimada bulshada arintaas weeye arintii loo sameeyay taasana u diyaar garoobaynaa waxaan wax yar inaan ka sheega rabaa marka halka ka gudbo waxa la yiri xoogaga wadaniinta arintaas waxa igu qasbay in kastoo mar kasta in la isu sheego ay ahayd waxa jiray wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya oo shirka qayb galay nin mas'uul ah wuxuu weydiiyay xoog adinka ciidankaan idinku ogeyne waa ma xoogaga kale oo dalka laga sameeyay wasiirku su'aashaas sidaan u arkay haddaan qaldanayn kama uuna jawaabin waa ka gudbi oo ninkii su'aashaas su'aalay uuna jawaabin wuu ka gudbi laakiin haddaan ka jawaabaynaa horta wadaniyo maxaa wadanina maxaa lagu noqdaa qofku wadani goormuu noqdaa qofku wadani wuxuu noqdaa markuu dhasho oo banaanka yimaado ama wiil ha ahaado ama gabar ha ahaado waa wadani dalkiisii ku dhashay waay wadaniyada markaas la qaataa jinsiyad qaada iyo xagga iska daa dhalashada rasmiga ah ilaahay ku dhaliyay oo dalkaas iyo deegaankaas iyo diintaas ilaahay ku dhaliyay ayaa wadaninimada lagu qaataa wadani waa midkaas waanu jawaabaynaa wadani midkaas waad u sheegaysaan in wadani kaasiya xoogag maxaa la yiraahdaa xoogse maxaa la yiraahdaa xoog waa cudud meel ka soo jeeda waa run xoogga dalka Soomaaliyeed waa xoogga dalka magacaasa loo yaqaanaa xoogga dalka xamdigaas leh waa kuwii hoboladu ku heesi jiray annagoo caruur haddana aan waqti sii marayn waa xoogga dalka waajib uu leeyahay waajibkiisa waxaa ka mid ah inuu dalka difaaco xooggiisa yahay hadday dhul tahay hadday bad tahay hadday cir tahay inuu difaaco waxaa kaloo waajibkiisa ka mid ah masiibooyinku markay dhacaan hadday dab tahay hadday abaar tahay hadday cudurro xumo faafo tahay xoogga ugu weyn oo soo gurmada inay noqdaan xoogga ugu weyn oo soo gurmada inay noqdaan xuduudaha iyo cadawgana ay saas uga difaacaan
ama cir hal noqoto ama dhul hal noqoto waa magacaas waa jira waa xoogga dalka Soomaaliya laakiin xoogag markii la yahay waa intee xoogga kaliya miya xoogga dalka kaliya miya xoogga dalku ma xoogga kaliya maya qofku markuu reerkiisa ku soo biiro hadduu qof wax tarayahay 7 sano ayuu reerkiisa ama 5 sano ama 7 sano ayuu aabihiyo xoog hooyada xoog ugu noqdaa markuu ka sii weynaadana waa u sii koraa bulshada markuu ku biiro qaybaha bulshada xoogaga oo qaybahaas bulshada ku biira wareer miyigu waa xoogga dalka waay xoogaga dalkay ka mid yihiin beeralaydu xoolaha xoogaga dalkay ka mid yihiin iskaashashooyinka xoogaga dalkay ka mid yihiin ganacsatada xoogaga dalkay ka mid yihiin ururada bulshada xoogaga dalkay ka mid yihiin hadday dhalinyaro yihiin hadday haween yihiin hadday shaqaale yihiin hadday iskaashato yihiin xooga dalkay ka mid yihiin waa xoog dalkaas u dhashay oo uu leeyahay waliba difaaciisa maalintay dhanaanaato qaybtooday ku leeyihiin kaalintooday ku leeyihiin ciidamada ma xoogga dalka kaliya aw ciidankii booliska oo daraawiish lahaa oo saldhigyo lahaa oo dambi baarayaal lahaa CID la yidhaah oo qolada canshuuraha lahaa biriga iyo baddaba aw ciidankii nabad sugidda oo xasidinta deegaanka iyo nabad sugidda iyo nabadda la socodkooda lahaa aw ciidankii asluubta oo Soomaaliyeed oo dhaqan celinta iyo tarbiyada qofkii halaaba ama qofkii dambi soo gala ama sideedaba shaqada iska lahaa intuba waa xoog dalka waay waa xoogaga dalka waay bulsho inta markii la isu geeyo xoogaga dalka waay ma ahan qof wuxuu sameystay ma aha nin shalay dalka xukumayo wuxuu samaystay ma waa nin shalay iyo nin maanta iyo nin beriya dad la shaqayn doono waay laakiin quburo dalka wax ku soo baratay oo dadkooda wax u soo baratay ayaa magacaas la baxay oo wadanigii iyo xooggii isu geeyey saasayna dalka ugu shaqaynayaan saas ayay dalka ugu shaqaynayaan waa in saas loo garto aadna uga jawaabtaan ayaguna u gartaan waay qolada xoogga yaad ahaydeen waa ma xoogaga la bixiyey qolada leh saasaa weeye jawaabtu saas waay waxaan maqlayay xoogagaa la samaystayoo dawladdu samaysatayoo bastooladaa loo dhiibayoo inay nagu dilaan aman ka baqayna waxaa loo sameeyey xoogaga aad u samaysan tihiin waa midda aan idiin sheegay waay waa midda cadowga ilaa guri ku jira inaad soo ogaataan waay ma bastooladaad siyataan ma hubaad siyataan hubkiinnu waxaa waaye inaad la shaqaysaan ciidamada amniga la shaqaysaan iyo mas-uuliyiinta degmooyinka aad joogtaan waay inaad saas u shaqaysaan waay annaguna ma barnaba dadka mana aanaan soo baran inaan dadka hub isugu dhiibno ma aanaan soo baran waxaan soo barannay midka qoriga sida inta la hadalno inaan ka dhigno ee nabadda soo aado adinkana intaasaan idiin sheegaynaa adinkana
intaasaan idiin sheegaynaa midaasna waxaan jeclahay huwa loo soo dhiibay ee waa hubaysan yihiin hubkanagu waa hubka ciidanka sida waay hubkanagu waa midkaan ku shaqaynayna waay laakiin garta nin kale huwa la igu soo dhiibay intiina meesha fadhida oo 400 iyo xogaaga oo inta aan soo kala shirinayo shirkii waxa waaye tobnaad waaye shirkan waxaan noo haray 6 laamood noo haray 10 laamood soo marnay waxaana meel isugu keeni weynay meel ma qaado waxaan idin sheegaynaa intaas waay waxaan idin sheegaynaa waa midnimada Soomaaliyeed waay waxaan idin sheegaynaa waa in dadka la waaniyo waay waxaan soo baranaa sidaas waxaan idin leeyahay maalin waxa la gaari doonaa wax qorisita iyo qof u dacwoonaya iyo qof xaq ka qaba iyo qof aysanaya iyo qof ka baqaya midna una jirin ayaa la gaari doonaa waayo waa maalinta Ilaahay ugu talagalay inuu dadkiisa qofba meeshuu mudan yahay inuu geeyo maalinta Ilaahay ugu talagalay waa inta ka horeysa waxaan ku jiraynaa inaan iska ilaalino dhibaatada dambe oo xisaabta Ilaahay iyo midda dalkanaga lagu hayo inaan ka ilaalino wakaas waayo waxaan idin sheegaynaa intaa waa ayagana waxaan ogeysiinaynaa waa intaas laakiin hal ogaada adinka hub sidan annagoo bastoolada sidan annagoo qaata aan idin dhihin ma ahan qofka hadalkaas loo xabad inaad sidataan ma ahan hadalka wuxuu leeyahay mabdi'ina aad ku dhagantiin ayaa xabad ku ah mabda aad ku dhagantiin oo aan ku soconno oo horumarka dalkanagu ku socdo ayaa xabad u ah waxaan leeyahay dad aan aad u jeclahay dhaqankooda haddii intaan soo shaqaynaya aan raadiyey oo Soomaalida kamid ah oo deegaanka Soomaalida kamid ah niman ciise la yiraahdo oo galbeedkaas degay anu wax badan ka arkay ama ciidan ahaan ku arkay ama waxaan ku arkay maaragtay shaqo ahaan aan ku arkay wadadan dhaqankooda aad u jeclahay waa dhaqankooda isku duuban yahay waa dad mabda'oodu isku duuban yahay oo Soomaalida kamid ah waxa jirtay markii askarta dhirka iyo loo qori jiray itaalka iyo oo inta istaagan la soo qori jiray aanin oday u ah rag la kala xulanayo ciidanka inta la soo shiriyo dadka la soo shiriyo soo bax la dhigi jiray ninkii dhaqankaas meesha madaxda ka ah yaa yiri wiilashan la kala xulaya waa maxay oo la soo bixinayo soo bax la leeyahay ma ninka dheeraan xulanayna oo xoogan oo caafimaadku ka muuqdo wiil ciise mid laga tagay iyo mid la socdo midna ma kala lahaane dhinac ragga ka goostu yiri hadii kale iga soo dhaxbax dhaqamada lagu yaqaanay kamid marka waxaan maqlaa hadalkaas aan u soo qaatay markii deegaankay deganaayeen oo ayagu u badnaayeen oo waxay ku arki jireen show dad kamida dadkaas ay ayaga u badnaayeen yaa dad cadaan oo deegaankoodii yimid oo wafti ahaana mindaa waa markii cadaanku wadanka saaminayay waa ku soo baxay ruuxan cadcadu waa ma war ciise dadka caadiga u ekaan jiray dadka cadcado in soo dhex galay waa ma mida wuxuu yiri ku qanciyay dadkii war amalkooda cadeeyay laasun dadkan waa ciise amalkooda cadeeyay dadkan waa ciise laasun kamid yihiin marka nin kale wadani muxuu yahay ama xoogag muxuu yahay dhaqankiisu hadduna dabeecadiisu ayna la leexan xoogaga iyo wadaniinta dalku kamid yahay saas uu ogaado waxaan jeclahay markaan labada jawaaboodna
aan halkaas uga gudbo oo aan qoladaas siinayay waxaan u soo jeedin lahaa madaxda dalka oo saddexda gole iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ra'yi ahaan dalka Soomaaliya wuxuu qaadi karaa ha loo dhiibo wuxuuna qaadi karin ha laga daayo adinkaa maanta taariikhda madax ka ah adinkaa hogaaminaya taariikh kastana ragay ku calaamaysan tahay bulshada dhaqankeeda sida cilmigeeda ku soo baranay waxaa ka mid ah qofka dalka hogaamiye ka noqda cadow buu leeyahay ilaa nabi maxamed cadow lahaa oo adeeray iyo dhagax iyo u dhigi jireen iyo qodaxda u dhigi jireen ay ku soo degtay nin walba cadow waa ku imaanaya laakiin hal ogaada waxaa la yiraahdaa qofka hogaamiyaha markuu dhinto 40 sano ka bacdi ayaa qofkaas inuu daacadahay dalka horumar u horseeday iyo inuu dalka dib u dhac u horseeday markuu dhinto ka bacdi 40 sano ayaa taariikhdiisu soo baxdaa galay cilmiga bulshada saasana lagu baray sababtoo ah 40 sano ka bacdi dadkii la xafiltamay oo la tartamay oo magac kasta loo adeegsanay waa badi waa u dhamaanayaan ama waa u hawlgab waa laakiin dadkii markaa ka bacdi wax soo bartay oo aqoon soo bartay oo soo maray ayaa 40 kaas ka bacdi waxay qoraan ninkii waa hebla ama gabadhii waa hebla dalka xukumi jirtay iyo dawladii hogaamin jirtay iyo baarlamaankii hogaamin jiray waxay u horseedeen horumarkaas u horseedeen waxaase ka hor yimid caqabadaas hadalkaas waxaan ula dan leeyahay taariikhda Soomaaliya waa qormaysa Soomaaliya ma baabi'i doonto Soomaaliya shanta qaaradood ay joogtaa Soomaaliya shanta qaaradood wax ka baranaysa ilmahooda wax ka baranayaan Soomaaliya shanta qaaradood waxay ogtahay dalkooda iyo dal kasta waxay ku joogaan qof walba wuxuu la joogaan dhalinyarada shanta qaaradood jooga ama dadka jooga shanta qaaradood oo Soomaaliyu waxay og yihiin dadka dalkaas jooga iyo ayagu waxay kala yihiin ay og yihiin mana baabi'in doonto Soomaaliya waa jiri doontaa Soomaaliya waa jiri doontaa dadkaasana taariikhda qori doona iyo dadka jooga Soomaaliya waa maasantii dadkaas ayaa wax qori doona dadka jooga wax qori doona dadka jooga wax soo qoray aqoon-yahanna ay leeyihiin aqoon-yahanadaas wax qori doona waxay soo qoreen Soomaaliya oo hadda aad maqashaan 13 dhalinyaro inay inta istaagtay inay qarannimo gaarsiiyeen ayaa soo joogteen oo arki doontaa shantaas 13 dhalinyaro markay soo istaagtay dalalkii gumaysigu dalka naga shantii uu qaybiyay oo qaar la siiyay iyo kuwii qaybiyay ayaa dadka nagu markuu burburay intay isugu yeeray ayay waxay u sameeyeen waxaad samaysataan yiraahdeen 10 madaxweyne baarlamaankii maanta joogo ansixiyay taariikhdu waa qori doontaa adinka maanta joogana taariikhdu waa qori doontaa dadka naguna gobol inuu isugu dhamaado ayaa taariikhdaas u dhaxli doontaa taariikhdaas xoogii dalka oo 84 markaan joogay degmada Afmadow aan gudoomiyaha degmada ka ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saldhigiisu wuxuu ahaa qoqani bilis qoqani uu saldhigiisu ahaa oo 43 sideetan iyo kowdii markaan gudoomiye ka ah degmada Dhuusamareeb ciidanka xoogga dalka
saldhigiis wuxuu ahaa 21 iyo dhuuso mareeb dad hadda mas'uuliina waxay leeyihiin maxaa loo geeyay xoogga dalka balaxa way dhuuso mareeb maxaa loo geeyay warbalqooda iyo xerada iyo ilka iyo dhulka dhaqanka fiiri dad mas'uuliina oo mas'uuliin raadinaya oo ka soo qabtay shalay oo maanta inay ka qabtaan raba ayaa waxay leeyihiin dhuuso mareeb iyo balaxa maxaa loo geeyay xoogga dalka midna saldhigii 41 ay midna 43 horintii halka u xigtay ayaa qooqaani deganeed oo saaxay ugu marsaneed wardadkiisaas u soo shaqeeya idin la jooga oo idin maqlaaya wardadka aqoonta laha wax baranaya oo wax qoraya waxaan idin kula talinayaa mas'uuliyiinta dalka qof 30 kiilo 1 kiilo hadda dhabarka u saarta lama kici karo Soomaaliya waxayna la kici karin baarlamaanada iyo golayaasha Soomaaliya iyo madaxda dalka dusha ka saarinina ka qaado intaasaan idin kula dardaarmaya intaasaan idin kula ballamaya Soomaaliya noolaad Soomaaliya midow Soomaaliya israado madaxweynaha dalka farmaajo ha noolaado waa ma tantiin